qiimaha la kala siisto raashinka qudulduruuriga suuqyada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ah mid si aad u sareysa taasi oo ay ganacsatada ku macnaayeen siyaabo kala duwan. Ascaarta raashinka sida burka, sokorta, bariiska, sisinta kaleyda ayaa ah kuwa ay kordheen lacagaha la kala siisan jiray taasoo ay weheliso qiimaha caanaha oo isna laba jibaar sare u kacay intii la kala iibsan jiray isbuuc ka hor. TV-ga Universal oo u kurgalay sababaha keenay sare u kicitaankaasi ayay ku tilmaameen ganacsatada inay la jaan qaadayaan qaybaha kale ee dalka kuwaas oo raashinka gabi ahaanba ka qaaliyoobay. Xasan Cali Calisow oo kamid ah ganacsatada cunnada ee suuqa Jowhar ayaa ka waramaya sababaha keenay qiimo kororkaasi. maadaama yaan doorku u kacsan yahay oo xamar u kacsan yahay aniga xamaran soo qaadana badeecada sokorta kulata bariiska burka iyo bagaashka sida yacnaad maanta ugu jeedin maca sawirkiina gadaashayda macnaha waa ku qanacsanahay laakiin maadaama yacni doorku u qaali xaq amarkiya qiimaha sinta ayaa iyana waxa ay cagacageynaysaa kiiladeedii lacag u dhaxaysa 20,000 ilaa 25,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka ay horay suuqyada Jowharna ugu mareysay 10,000 ilaa 13,000 oo shilin taas oo ay sharaxaad ka bixinayso Gacalo Maxamed Cabdi oo kamid ah ganacsatada sinta waxyaabaha sababay kiilada 24 iyo 525 horay 20,000 tamay 7,000 ilaa 8,000 ay ahayd safalkaana aad u qaali garowd nadiifo oo iyana kamid ah haweenka ka ganacsada caanaha ayaa waxa ay cabasho ka muujisay sicir barar ku yimid galaaska caanaha oo qiimihiisu uu haatan ka marayo magaalada Jowhar lacag gaaraysa ilaa 5,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka uu maalmo ka hor ka ahaa 1,000 shilin ilaa 2,000 oo shilin caanaha beeceedu waa 5,000 caanaha maaragtay ama loo hadaad rabto ama geel hadaad rabto kulli 5,000 way qiimahooda galaaska hore wuxuu ajrin ku 500 2,000 1,000 saasi ahaan jiray xilliga qiimiga dhibaatada socota waa aragteen maxaa wadanka hadda ka jira waa aragtay rafaad ka jira ugu dambeyn gudoomiyaha guddiga ganacsatada ee degmada Jowhar Yuusuf Maxamuud Weheliye Afweyne ayaa ka waramaya guud ahaan sicir bararka ku yimid qaybaha kala duwan ee ganacsiga xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ee magaalada Jowhar ganacsigan wuxuu ku xiran yahay magaalada Muqdisho culayskiisa ugu badan wuxuu nooga soo gaaraa xagga wadooyinka oo nagu xun canshuuro yar yar oo degmooyinka lagu horumariyo oo nabadgelyada looga shaqeeyo waxyaabo noocaas maahan inta kale ganacsigeenu aad u fiican yahay ganacsiga kala duwan ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay tahay xaaladiisu mid caadi ah iyadoo qaybaha lagu iibiyo galeyda sisinta iyo waliba raashinka qudulduruuriga iyo bagaashka ee magaalada Jowhar ay tahay beecoodu sida ay sheegeen ganacsatada mid iska caadi ah Cabduqaadir Umar Cabdulle TV-ga Universal magaalada Jowhar